cinwaankeedu yahay in lagu taageero gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir haddii jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway xarunta Oslo caawa waxaan u dabaldegaynaa taageerad buuxdana aan siinaynaa maamulka cusub ee gobolka Banaadir ee dhawaan la magacaabay ee uu hogaaminayo Undermaster General Xasan Mugaab barnaamijkan caawa wuxuu ka koobnaan doonaa faqraad aad u kala duwan oo qaybo badan taaban doona xaggii kelmadaha heesaha farikama qodno mashruuci faano la sii dhigi jireen waxaan jaleeci doonaa qaybo fara badan salaadiintii ogaasyadii xildhibaanadii dhammaan magacyadiinii kala duwan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay soo dhawaada waxaan ku furaynaa aayadaha qur-aanka kariimka waxaan noo akhrinahay walaalkeen Nuur Shariif kusoo dhawo mikrofoonka adoomaas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. هرب شيء حفلة دعوة عنوان كريم هي تاجر دمامل كرسول waxaan ka marnay dhinaca kale suuqintii maamulkii hore muddo dheer dagaal suuqeeyo dalka Soomaaliya oo soo maray dagaaladaas inta ugu badan saameyntu waxay ku yeesheen caasimadda Soomaaliya oo la isku waafaqsan yahay inay tahay muraayadii dalka gudoomiye Tarsan ayaa wuxuu ahaa muddadii uu meesha qabtay muddadii ugu xoog badnaa gobolka aad loo hagaajiyay Banaadir haddaba caawa xafladani waxaan ku sameeyay doonaa gudoomiyahaasi iyo howlihii uu soo qabtay inaan si fiican ugu amaano isla markaasna aan soo dhaweeyo gudoomiyaha cusub taageerana aan la barbar istaagno haddaba munaasabada noocaas ah ee caawa u fadhino waxaa jooga meesha odayaal salaadiin xildhibaano ayaa munaasabadaas wax ka dhihi doona inta ka horeysase waxaan ku bilaabayaa walaalkeen Jeelaan Sheekh Muxidiin oo si rasmi oo official ah idin soo dhaweeyo magaca guddiga Jeelaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وما بعده علماء الدين دوبك سيدا إمايدا وغاسيدا قرادة مراغيدا وبرهدا يبالدا جياشا جينتي كلا عن مقعود الشيقين وضياشا لغاك الصوماليات ودك النروي سياسيين تا صوماليات meesha fadhida goobta ay isugu jira kuwa wadanka Norway iyo kuwa siyaasiyiinta Soomaaliya labadaba haweenka Soomaaliyeed ee sharafta badan dhalinyarada saraakiisha ciidamada kala duwan bahda saxaafadda ee isugu jirta saxaafadda madaxa bannaan iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee Somali National TV ama SNTV fanaaniinta Soomaaliyeed aqoon-yahanada kala duwan abwaanada sharafta badan ee goobta fadhiya caawan halkan wacdara ka dhigi doona ganacsatada iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee isugu timid xafladan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa in aad waqtigiina qaaliga ah aad u soo horteen inaad xafladan ka soo qayb gashay qiimaha badan annagoo og qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay waqtiga Yurub walaalayaal sida walaalkeen hore u sheegay xafladani waxay ku saabsan tahay laba shay ayay ku saabsan tahay labadaas shay oo kala ah soo dhaweyn iyo dardaaran loo jeedinayo maamulka cusub ee gobolka Banaadir ee uu hogaaminayo General Xasan Maxamuud Xuseen Mugaab iyo sagootin iyo mahadcelin loo jeedinayo maamulkii hore ee sharafta badnaay ee qabtay
waxa qiimaha iyo qaayaha badan ee muuqda ee aan qarsoomi karin ee uu hogaaminayay walaalkeen maxamed maxamuud nuur tarsa هذا الكلام ماشي كمله كليا ما دام أن قال يمجع جودي قبل قابله إن أنا ذكسر دوي حفلتنا أي الوفرة إن شاء الله تعالى وحواي وحبا بيكون ناتونتا وحجر دون قطبه وحجر دون محنكو إلى يعني كاسو قبايو شرب عياله هيدا يقدمك وأدي اللي رعاه وهل كان أدوغا محنكو بقدونتين إن شاء الله تعالى ولا ليال وما سنتين سنتين ما بلغ دعاء وجيبتين وحنا رجينا إن شاء الله تعالى إلا نقولنا أن حاول أمورنا كهيل دونتان إن شاء الله تعالى بعدها ماشي كذا وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.